siyaasi cabdiqaadir cali obsiye oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland ayaa baaq u diray shaqaqadii dhawaan ka soo cusboonaatay deegaanka Ceelaf Weyn isagoona ugu baaqay inay joojiyaan dhiiggaasi qubanaya. marka ugu horeysa waxaan doonayaa halkan inaan ka diro tacsi iyo duco wada socda. tacsida waxaan leeyahay waana shaqaqadii ama colaadii iyo dhibaatadan aan inaga dhamaanayn ka soo noqnoqonaysa Ceelaf Weyn. waxaan leeyahay dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto wixii ku dhaawacmay Allah shaafiyo. waxaan duco u raacinayaa dadka meesha degan ee waxaan waxba ahayn maalin walba isku dilaya dhiig walaalahood ku daadinaya. waxaan leenahay baaqigu naga dhamaaday laakiin waa idin ducaynayna Ilaahay aqliga idinku soo celiyo baan leenahay. waxaydan garasiya xaqa iyo waxa ay isu tihiin inaad tihiin dad wada dhashay isku degaana oo aan kala maarmayn kalana tegayn. Ilaahay ha idin fahansiiyo baan leeyahay. waxaan leeyahay ha khasaareenina tacabkii la idin galay haday tahay culimo oo diin sulaadiin iyo madax dhaqameed xukuumad iyo siyaasiyiinba tacabkaas ha khasaareenina baan leeyahay. wax garta oo wax fahma ayaan idin soo jeedinayaa insha Allah taala. geesta kalena siyaasi cabdiqaadir cali obsiye waxa uu ka hadlay heshiiskii ay wada gaadheen saddexda xisbi qaran ee Somaliland ee ku aadanaa in guddiga doorashooyinka ee Somaliland lagu daro 2 xubnood isagoona nasiib darro ku tilmaamay heshiiskaasi ay gaadheen saddexda xisbi qaran ee Somaliland in gabi ahaanba mooshinkaasi ay laalaan golaha wakiilada ee Somaliland. isagoona geesta kalena ka hadlay sawir dhawaan ay wada galeen wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland iyo wasiiro ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxa weeyaan heshiiskii berigii dhaweyd aan inta badan ku baaqaynay ee sida wanaagsan u dhacay dadkuna ay ku diirsadeen maanta khilaafku uu ka soo noqday ayaan ka hadlayaa iyadana. waxaan leeyahay ninba waxa laga hayay markaan tala meel dhigaba soo tay rabbi meel ma sii taal. timacadana muxuu yidhi waa kii lahaa dab markuu baktiyaba meel kala dogob ka qiiqa. markastaan isnaahno xaggii wanaagsanaad baa tallaabo loo qaaday waxa ka hor imanaya caqabado iyo maaragtay dad kale oo si xun doonaya inay maaragtay ummadda wax ugu sheegaan ama meel kale ay ku majara habaabiyaan. waxaan leenahay khilaafkaas soo noqday ma ogolin. waxaan leenahay heshiisku sidiisii hore ha u socdo. waxaan leenahay oo aan ku baaqaynaa in ay dadku ay ku baraarugaan oo ciddii markaa khaladka wada in la qabto baan soo jeedinayaa. ninkan la leeyahay sharciyaqaan weeyaan. waxaan leeyahay horta dastuurkani waxa weeyaan waa heshiis ummadii ay dhigatay weeyaan. xukuumadda iyo golayaasha ama saddexda xisbina waxay ahaayeen heshiis bay ku gaareen ummadani matelayeen. waa laba heshiis labaduba haddii dastuurka tahay haddii heshiiskan tahayba. waxaana yani tiraahdaa waa xadiis man ra'a munkaran falyughayyir biyadi sooma lama odhan. yani haddii aad munkar aragto gacanta ku qabo kaasaa waxaa lagu leeyahy munkarka haddaad suulinayso mufsado ka weyne ay ka imanayso inaad taabato lama ogola. hadda waa sharciga ilaahay. waxaa lagu leeyahy munkarkaad samayn aad suulinayso haddii mufsado ka weyne ka imanayso lama ogola inaad taabato. marka waxaan leeyahay wax umadu ku heshiisay inaad tiraahdaan yani waa jabay ama waa la jabinayaa oo khilaaf hor le ka abuurtaan. waxaan u arkaa anigu majara habaabin iyo in ummadda jahawareerin lagu sii rido iyaguna ay u helaan muddo kororsi iyo markaa maaragtay iyo waqti lumis ayaan anigu u aragnaa. waxaan ku baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad baa ku baaqayaa in heshiiskaasi uu hirgalo sidii uu ahaa lagu wada khilaafka sidaa lagu soo afjaray marka aan dib loo soo celin khilaaf dambe. waxaana ugu baaqayaa xisaabta qaranka iyo xukuumadaba maalin walba inaanay waxaan sakaara ka biirsanin ummadda dhagaha kaga wasakheeyaan iyo yooyootankan inay ka rabtoonaadaan ummadda barnaamijyo iyo horumar wixii dantooda iyo dadka iyo dalka ay ku jirto inay ka shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa saddexda xisbi qaran iyo xukuumadaba. sawiradii maalmihii dhaweed media lala wareegayay iyo warbaahinta waxaan leeyahay horta dadku inay fahmaan meesha la tigo horta xaram bay ahayd xajka ilaahay bay ahayd. cid kasta oo xumaan iyo colaad isu qabta meesha lama ogola in calool xaadnaan loo tago weeyaan. talabaad siyaasadda sideedaba colna maaha nabadna maaha. siyaasadda qofka uu isugu necab tihiin ayay idin walaalaynaysaa. qofkaad isugu jeceshihiina waa ku kala tegaysaan. marka siyaasaddu sideedaba waxa weeye jambeyn bayna daalika colna maaha nabadna maaha. wixii aan anigu soo dhaweynayaa wax kasta oo dantan ummaddu ay ku jirto waa soo dhaweynaya. wax kasta oo wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland u socday ay ku midho dhalayaana ayadana waa soo dhaweynaya. waxaan leeyahay laga shaqeeyo wax kasta oo lagu gaarayo xal ama wada hadal caafimaad qaba lagu gaarayo waan soo dhaweynayaa.
wax kasta oo tirtirsi iyo hadal xumo ah oo keenaya ama kala fogaanshaha ummadda labada ummadood keenayana waxaan leeyahay ha laga reebtaanaado taasina waxay ku imanaysaa in la isu dhimirsanaado la isu soo dhaweeyo la islaab xaadho la wada fadhiisto ayay ku imanaysaa baan leeyahay waxaan leeyahay in la cambaareeyo in xusbina la cambaareeyo xukuumadna lagu cambaareeyo wadahadal bay la gasheen iyo wadahadal waxaan qabaa anigu taas inaan waxaan jirin ay tahay hore noola looga tallaabsado baan anigu maaragtay soo dhaweynaya insha allahu tacaala waxaanan ummadda ugu baaqaya inay nabadgelyadooda ilaashadaan uguna soo wada jeedaan wax alaala wixii wax yeelanaya iyo wixii dhibaato ku keenaya nabadgelyadooda iyo wadajirkooda inay dhinac uga soo wada jeestaan xukuumaddana ay ku khasbaan in nimankan 20 sanadood oo dhowdhow fadhiyay guurtiidu waxa bay fadhiyeen 3 sanadood oo dhowdhow baarlamaankuna 20 sanadood oo dhowdhow maraya golayaashii degaankana waad arkaysaa inay ummadda ku khasabto in xukuumaddu ay kala dareeriso waxaan si doorasho haddii doorasho la qaban waayo waxaana soo jeedinaya doorashada in sideeda lagu qabto oo sida ugu dhaqsaha badan loo qabto baan leeyahay Idruus Maxamed Axmed Ariel TV magaalada Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida